Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh adduunka meel kastaa ka joogtiin kusoo dhawaada cunto macaan channel. Fadlan maxaan kaa codsanayaa channelka daa soo booqatay inaa subscribe ii sartid. Muuqaalkan hadduu kusoo gaaray maxaan kaa codsanayaa inaa like ii sartid. Asxaabtaadii familigaada la sheegaraysid. Aad iyo aad ayaa u madsantahay. Asxaabtayda qaaliga maanta maxaan samaysanaynaa qado iyo casriye dhammaystiran oo ka kooban ceesh iyo suugo, burkuskuus, cabitaan iyo macmacaan qadada kadib. insha Allah la socod wanaagsan soo dhawaada. bismillaah marka hore chickenka ayaan xawaajiye marinayaa. baaquligan maxaan ku haystaa 1 kiilo oo digaag maxaan ku soo darayaa koob nuskiisi oo plain yogurt ama caano garoor. kadib maxaan ku soo darayaa qaadada yar nuskeedii oo toon kadib maxaan ku soo darayaa qaadada yar nuskeedii oo sanjabiil kadib maxaan ku soo darayaa 1 qaado yaanyo shiishid. asxaabtayda qaaliga markana maxaan ku soo darayaa 1 qaado yar xawaaji dhudhuub. kadib maxaan ku soo darayaa 1 qaado yar paprika. kadib maxaan ku soo darayaa 1 qaado yar xawaaji burbuur. kadib maxaan ku soo darayaa qaadada yar afkeeda hore oo huruud kadib maxaan ku soo darayaa xoogaho cusbo kadib intan ayaa digaaga si fiican u marinayaa. kadib waan daboolayaa dhinac ayaan iska dhigayaa ilaa 1 saac. asxaabtayda qaaliga markana burka ceeshka ayaan qasayaa. baaquli ayaan soo qaatay. kadib maxaan ku soo shubayaa 3 bakeeri oo bur kadib maxaan ku darayaa koob nuskiisi oo burka brownka ama ata. kadib maxaan ku soo darayaa 2 qaado yar oo qamiir kadib maxaan ku darayaa 1 qaado yar oo sokor kadib maxaan ku darayaa 1 qaado yar oo cusbo kadib maxaan ku soo darayaa 2 qaado oo subag aan soo dhalaaliyay. kadib maxaan ku soo darayaa koob marka loo qaybiyo 4 meel qayb ka mid plain yogurt. kadib intan ayaa marka hore si fiican isku darayaa. kadib maxaan ku xashayaa caano iyo biyo oo isku soo qandiciye. asxaabtayda qaaliga markana burka ayaan si fiican u xashayaa. shay kasta burka samaysan maxaa fiican inaa waqti siisid si fiican u xashtid ilaa 7 daqiiqo ama ilaa 10 daqiiqo. insha Allah burka markaan si fiican u xasho ayaan isku soo laabaneynaa. asxaabay burka markan si fiican ayaan u xashay. kadib wax yar saliid ayaan kor ka marinayaa. kadib baaquli ayaan ku ridayaa. kadib waan daboolayaa. maxaan sugayaa ilaa uu ka soo qamiiro ama ilaa 40 daqiiqadood. burka intuu qamiirayo maxaan karsanaynaa maraqa ama suugada oo chickenka. digsi ayaan dabka soo saaray. kadib maxaan ku soo shubayaa koob marka loo qaybiyo 4 meel qayb ka mid oo saliid kadib maxaan ku soo darayaa 1 qaado yar xawaaji dhudhuub oo sidiisi kadib markan maxaan ku soo darayaa heel qorfa dhagayara iyo filfil. kadib maxaan ku soo darayaa qaadada yar nuskeedii oo toon
kadib maxaan kusoo darayaa qaadadan yar nuskeedii oo sanjabiil shiidan ah. kadib intan ayaan si fiican iskugu darayaa, maxaan shiilayaa ilaa 1 daqiiqadood. asxaabteyda qaaliga markana maxaan kusoo darayaa 4 xabo basal aan si yar usoo jarjaray. kadib markan maxaan sugayaa basasha ilaa ay brown ka soo noqoto. asxaabteyda qaaliga markana maxaan kusoo darayaa 4 xabo yaanyo aan birta karadka kusoo hoole. kadib basasha iyo yaanyada ayaan si fiican iskugu darayaa marka hore. kadib maxaan kusoo darayaa 1 qaado yaanyo shiishid. asxaabay markana maxaan kusoo darayaa xawaajiya. ugu horeyn maxaan kusoo darayaa qaadada yar nuskeedii xawaaji dhuudhuub. kadib maxaan kusoo darayaa qaadada yar nuskeedii xawaaji buurbuur. kadib maxaan kusoo darayaa qaadada yar afkeeda hore oo huruud ah. kadib markan maxaan kusoo darayaa digaaga. kadib dab xoogan ayaan ku shiilayaa ilaa 5 daqiiqadood. asxaabteyda qaaliga digaaga markana si fiican ayuu u shilmay. kadib markan maxaan kusoo darayaa 2 bakeeri oo biyo ah. kadib waan daboolayaa, dab dhexdhexaad ayaan ku karinayaa ilaa 25 daqiiqadood. asxaabay dhinac kale dabka maxaan soo saaray baradho ilaa 4 xabo aan soo jarjaray. kadib biyo ayaan dabka la soo saaray. kadib maxaan ku darayaa qaadada yar afkeeda hore oo huruud ah. kadib maxaan sugayaa baradhada ilaa ay kasoo bislaato. dhinac kale markana suugada ayaan usoo laabtay. suugada markan 25 daqiiqadood kadib sidan ayay kusoo baxday. kadib markan baradhada aan biyaha kasoo miiray ayaan kusoo darayaa. kadib maxaan kusoo darayaa qaadada yar afkeeda hore oo xawaaji isku dardar ama garam masala. kadib maxaan kusoo darayaa xoogaha kabsar caleen aan soo jarjaray. kadib markan chickenka iyo baradhada ayaan si fiican isku darayaa. kadib waan daboolayaa digsi dab gaaban ayaan kusii karinayaa ilaa 5 daqiiqadood. shan daqiiqo kadib ugu dambeyntii suugada digaaga markana diyaar waaye. waa chicken curry aad u macaan badan, aadna u fudud. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin. markana maxaan sameysanaynaa ceeshka. insha allah la socod wanaagsan. asxaabay burka ceeshka markana wuu soo qamiiray. marka hore waan isku celcelinayaa, kadib waan jarjarayaa. markaan jarjaro kadib waan kuskuusayaa. asxaabteyda qaaliga burka dhammaantood sidan ayaan u kuskuusay. inta kale maaquliga ayaan ku celinayaa, kadib shukumaan ayaan ku daboolayaa. 1 xabo kuus ayaan soo qaadanayaa, kadib waan fidinayaa. dhinac kale birta ayaa dabka ii saaran.
markaan fidiyo hore ayaan ka dubayaa. Burka ceeshka markaa fidinaysid maxaa fiican si dhexdhexaad inaad u fidisid, khafiifna uu kaa noqonin, bur aad u culus oo buuranna inuu kaa noqdo ma fiicno. Burka koowaad ayaan markana birta soo saaree, dabkana dhexdhexaad ayaan ugu dhigay. Markuu ceeshka soo fuurayana dabka waan u gaabinayaa. Insha Allah maxaan i tusi doonaa ilaa 3 xaba. Dhammaantood markaan bogo aan dubo ayaan isku soo laabaneynaa. asxaabteyda qaaliga burka ceeshka dhammaantood markana waan soo bogay. Markana steepka ku xogay ayaan guda galeynaa. Baaquligan maxaan ku haystaa subag aan soo dhalaaliyay. Kadib maxaan ku soo darayaa 2 xabo toon kadib maxaan ku darayaa xoogo kabsar caleen aan soo jarjaray. Kadib intan ayaan si fiican isku darayaa. Kadib ceeshka ayaan kor ka marinayaa. ugu dambeyntii ceeshka iyo suugada sidan qurux badan ay ku soo baxeen. waa ceesh aad u macaan badan, aadna u fudud, aadna u jilcan iyo suugo dhadhan leh. maxaa rajeynayaa inaad ka heli doontiin. markana asxaabay maxaan sameysanaynaa cabitaanka. insha Allah la socod wanaagsan.
makiinada cabitaanka ayaan soo qaatay kadib maxaan kusoo ridayaa 3 xabo oo liin macaan kadib maxaan kaloo kusoo darayaa 3 xabo oo liin macaan oo nooc kale kadib markan maxaan kusoo darayaa karooto ilaa 4 xabo aan soo jarjaray kadib maxaan kusoo darayaa jab sanjabiil kadib maxaan ku darayaa 2 xabo liin dhanaan aan soo miiray kadib maxaan kusoo darayaa biyo kadib waan soo shiidayaa asxaabtayda qaaliga cabitaanka markaan soo shiido kadib markana waa miirayaa sokor dhanna kaagama baahno ugu dambeyntii cabitaanka sidan qurux badan ayuu kusoo baxay waa cabitaan aad u macaan badan cabitaan oo dhadhan leh maxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin markana maxaan sameysanaynaa casriyaheena galabta oo burkuskuus insha Allah la socod wanaagsan baaquligan maxaan ku haystaa 3 bakeeri oo bur kadib maxaan kusoo darayaa 1 qaado oo qamiir kadib maxaan kusoo darayaa 1 qaado oo sokor kadib maxaan kusoo darayaa 3 qaado oo caano boore kadib maxaan kusoo darayaa 3 qaado oo warange kadib maxaan kusoo darayaa 1 qaado yar oo cusbo kadib intan ayaa marka hore si fiican isku darayaa kadib maxaan ku qasayaa biyo qandace asxaabtayda qaaliga markana burka ayaan si fiican u qasayaa maxaa la rabaa inaad si fiican u garaacdid sida canjeerada camal insha Allah markaan si fiican u qaso ayaan isku soo laabaneynaa asxaabtayda qaaliga burka markana si fiican ayaan u qasay kadib waan daboolayaa kadib maxaan sugayaa intuu ka soo qamiiro ama ilaa 40 daqiiqadood afartan daqiiqadood kadib burka markana wuu soo qamiiree marka hore waan isku celinayaa kadib
dhinaca kale saliid ayaa dabka ii saaran. Saliidda markay wax yar soo kululaato burka ayaan ku ridayaa. Waxaan soo diyaarsanayaa baaquligoo yar oo saliid ku jiro. Kadib qaada ayaan soo gelinayaa. Kadib qaadadaas ayaan burka ku jarayaa. Markasta oo qaadada burka ku dhagayo saliid ayaan gelinayaa. Asxaabay markana burka qaybta koowaad ayaan saliidda ku ridayaa. Saliidna aad ay ka kululaanin, dabkana waa un gaabiye, marna dhexdhexaad ayaan u dhigayaa. Insha Allah burka dhamaantood markaan bogo aan dubo ayaan isku soo laabaneynaa. asxaabteeda qaaliga qaybta koowaad burka markana diyaar waay. Markana qaybta labaad ayaan ku soo ridayaa. Insha Allah dhamaantood markaan bogo aan dubo ayaan isku soo laabaneynaa. ugu dambeyntii burkuskuuska markaan bogay sidaan qurux badan ayuu ku soo baxay. Markana maxaan kor kaga shubayaa caanaha macaan ama condensed milk. waa bur aad u macaan badan, bur aad u fudud oo casriyo ku fiican. maxaan rajeynayaa inaad heli doontiin sidan u sameysani doontiin. markana maxaan sameysanaynaa macmacaanka qadada kadib oo tiramisu. insha Allah la socod wanaagsan. baaquli ayaan soo qaatay kadib maxaan ku soo ridayaa 250 gram oo cream cheese kadib maxaan ku soo darayaa 3 qaado oo sokor kadib makiinada ayaan u qaadanayaa. creamka iyo sokorta ayaan si fiican isku darayaa, aan u qasayaa ilaa 5 daqiiqadood. asxaabay markana creamka iyo sokorta diyaar waay. dhinac ayaan iska dhigayaa. markana stepka ku xigay ayaan guda galeynaa. baaquli ayaan soo qaatay kadib maxaan ku soo ridayaa 3 xabo ukun oo qaybta jaalaha qaybta cadaanka waan iska reebay. kadib maxaan ku soo darayaa 3 qaado oo sokor kadib maxaan ku darayaa 1 qaado yar vanilla carfisa. kadib ukunta ayaan rabaa markana inaan kariyo. digsi aan biyo ku soo shubay aan dabka soo saaray. kadib biyaha markay soo kululaadaan baaquliga ayaan digsiga soo saarayaa. baaquligana biyaha inuu taabto ma la rabo. kadib markan ukunta iyo sokorta ayaan si fiican isku darayaa. maxaan karinayaa ilaa 5 daqiiqadood.
asxaabteyda qaaliga ah 5 daqiiqadood kadib ukunta markana diyaar waaye kadib ukunta iyo kareemka ayaa markana si fiican isku daraaya asxaabay ukunta iyo kareemka markana diyaar waaye kadib dhinac ayaan iska dhigayaa markana stepka ku xiga ayaan guda galeynaa baaquli ayaan soo qaatay kadib maxaan ku soo shubayaa hal bakeeri ee whipping cream kadib maxaan ku soo darayaa hal qaado oo sokor kadib makiinada ayaan u soo qaadanayaa kareemka ayaan si fiican u qasayaa ilaa uu ka soo adkaado ama ilaa 5 daqiiqadood asxaabteyda qaaliga ah whipping creamka markana diyaar waaye kadib markaan labada kareem ayaan si fiican isku darayaa asxaabteyda qaaliga ah labada kareem markana diyaar waaye dhinac ayaan iska dhigayaa markana stepka ku xiga ayaan guda galeynaa baaquli ayaan soo qaatay kadib maxaan ku soo shubayaa hal bakeeri oo biyo kulul kadib maxaan ku soo darayaa 2 qaado yar oo kafee kadib markan kafeega ayaan si fiican u qasayaa asxaabteyda qaaliga ah markana 2 qaado oo kafeega aan diyaariyay ayaan ku darayaa kareemka kadib markan kareemka iyo kafeega ayaan si fiican isku darayaa asxaabay markana maxaan guda galeynaa stepka ku xigay meeshan maxaan ku soo diyaarsaday buskudka tiramisu loogu talagalay oo lady fingers marka hore buskudka ayaan soo qaadanayaa kadib kafeega ayaan gelinayaa kadib saxanka aan rabo inaan ku habeeyo ayaan saarayaa asxaabteyda qaaliga ah buskudka markaan saxanka saaro kadib markan kareemka ayaan kor ka marinayaa kadib haddana mar labaad ayaan buskudka saarayaa
asxaabay markana buskudka maxaan kor ka marinayaa cream, kadib cocoa powder ayaan kor kaga shubayaa, kadib waan daboolayaa, kadib firinjeerka ayaan gelinayaa. Firinjeerka muxuu ku jiray ilaa iyo 10 saacadood. insha Allah markaan firinjeerka kasoo bixiyo ayaan isku soo laabaneynaa. asxaabteyda qaaliga ugu dambeyntii tiramisu markaan fridge kasoo bixiyay sidan qurux badan ayuu kusoo baxay. waa macmacaan aad u fudud, si sahlan u samaysan kartid, waliba waqtiga casuumaad aad qabtid aad iyo aad ku anfici doono. waa qado iyo casriyo dhameystiran. waxaan rajeynayaa dhammaantood inaad ka heli doontiin. inta haysanin Allah siiyo, inta haysatana Allah u barakeeyo. ilaa iyo intan hadda ila soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa. muuqaalkan hadduu kusoo gaaray maxaan kaa codsanayaa inaa like ii sartid, asxaabtaadii familigaada la sheegaraysid. channelka haddaa soo booqatana maxaan kaa codsanayaa inaa subscribe ii sartid. muuqaal lamida intaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.